furitaanka xarunta akhriska ee degmada Salaxley oo ay dhistay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Maroodijeex maamulka degmada Salaxley xubno ka socday gudida sahan barwaaqo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Salaxley xarunta akhriska degmada Salaxley oo isugu jirta laba qaybood oo kala ah qaybta wiilasha iyo qaybta gabdhaha ayaa waxaa loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta ardayda reer Salaxley ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay bahda waxbarashada ee degmada Salaxley gudida sahan barwaaqo dhalinyarada degmada Salaxley iyo xubno kale kuwaasi oo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland uga mahad celiyay dhismahaasi xarunta akhriska ee ka fulisay degmada Salaxley maktabadan Salaxley maanta aanu ka furayno waa markii ugu horeysay taariikhda in Salaxley yeelato library u gaar ah waxaana ka hirgelisay wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyo wasiirka waxbarashada waxaan xaruntan maanta u faa'iido ah ardayda eedharka ka baxaysa iyo ardayda form 4 ka baxaysa in maanta ay maktabadii helaan oo wax ku akhristaan aad iyo aad bay guul weyn noo tahay waana uga mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada oo hirgelisay waxaan ugu mahadnaqaynaa maktabadan xukuumadda Soomaaliland oo u garatay inay maktabadan u sameeyso Salaxley gaar ahaan wasiirka waxbarashada Axmed Diiriye ayaan aad ugu mahadnaqaynaa wasiirkan maanta haysta waxbarashada waa wasiirkii ugu waxqabadka badnaa degmada haddaan salaan carabi laga hay xaashaynin libanka xisbiye xumihii waa yaab geesta kale maayarka degmada Salaxley maayar ku xigeenka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ayaa halkaasi ka hadlay waxaana ay u mahad celiyeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska muhiimadda maanta meesha u joognaa waa furitaanka xarunta akhriska ee degmada Salaxley oo runtii ay wasaaradda waxbarashadu halkan ka hirgelisay waanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tiimkiisa wasaaradda runtiina aad iyo aad waxaan halkan uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Toorno gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee waxbarashada Axmed Shariif oo imika inala jooga ahmiyadda weyn ee degmada geliyeen haday tahay dhinac walba xagga maktabada iyo iskuulo farabadan oo kale oo ay ka dhiseen ilaahay mahadle dhismahan ay maanta xariga ka jarayna wax weeyaan dhismaha loogu talagalay maktabada degmada Salaxley oo runtii degmadu aanay dhismaha maktabadu leedahay runtii aan hore uga jirin waana runtii qayb ka maqnayd waxbarashada degmada ugu dambeynna gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Maroodijeex Axmed Shariif Ibrahim ayaa halkaasi kula dardaarmay bulshada reer Salaxley isagoo u soo jeediyay inay ilaashadaan xaruntaasi akhriska ee degmada Salaxley oo waxa mas'uul ka noqon doona iskuulka iyo cidii aanu meeshan u xilsaarano hadii Allah awood la ka dhigo wal iskantarooli doona buugta qaar la kireynaya iman doona oo maxaan ku raadayay kuwan ka gooniya kuwa free jiri doona waxa weeyaan inaad ku dadaashaan sidii meesha aad sharafteeda u dhowri lahaydaan ardayduna uga faa'iideysan lahayd ee ay dalkooda wax ku soo kordhin lahayn iyagu